olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda caasimadda ayaa maamulka degmada Shingaani iyo maamulka degmada Shibis oo iskaashanaya waxa ay si wadajir uga fuliyeen wadada kilomitir 0 iyo wadada Jubba si looga jawaabo baaqa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Finish kaas oo ku aadana in la joogteeyo barnaamijyada kor loogu qaadaya bilic soo celinta caasimadda. sidoo kale maamulada degmooyinka Shibis iyo Shingaani ayaa waxa ay ku dhiirigelinayeen ganacsatada iyo bulshada in ay qaataan doorkooda ku aadan ilaalinta nadaafadda iyo sidoo kale nadiifinta wadooyinka caasimadda. gaadiidka loo yaqaan cagaf-cagafta ayaa sidoo kale qayb ka ahayd barnaamijka nadaafadeed ee laga fuliyay wadada Jubba iyo wadada kilomitir 0. ololahan oo ahaa mid xoogan ayaa qaatay dhowr saacadood marka uu soo ilaadina waxa warbaahinta si wadajir ula hadlay gudoomiyaha degmada Shingaani ee gobolka Banaadir mudane Aweys Sheekh Maxamed Amiin iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Shibis mudane Cali Soomaali. roobabkii caradii ay keeneen iyo wasakhdii inaan ka nadiifino magaalada si bilicda magaalada ay ula jaan qaado magaalooyinka kale ee dhigeeda ah. ololahana xilligan aad joogtaan oo ah 3 saac oo habeenimo ayaan ka wadnaa ololaha nadaafadda si aan ugu diyaar garowno maalmaha ciidda iyo quruxdeedii mana ka daali doono waana wadi doonaa insha Allah taala. waxaan ka shaqeyn doonaa bilicda labada degmo maadaama ay foodan ugu soo haysay munaasabadda ciidda in dadka ku nool labada degmo iyo guud ahaan caasimadda ay ku ciidaan magaalo bilicle. marka labadan degmo waxa ka dhaxeeya iskaashi oo dhan kasta oo amniga oo arrimaha bulshada ah oo nadaafadda ah. insha Allah taala waxaan ballan qaadan doonaa inaan dadar gelino howlaha nadaafadeed ee ka socda degmooyinka Shibis Shingaani. waa maasantiin. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.